وعنا وناكسنا قيارتها وذان كصاحبنا يا ويدلكينبا ميرو بو جوجتان waxaad leenahay waqtiga aydiin waxnaado dhamaantiinba muuqaalka la garay cid walba muuqaalka leegta ku qabata waxa rabbi subhanahu wa ta'ala aan kaga baryayna umuraha qofkaas uu leeyahay ilaahay inuu u sahla ilaahay subhanahu wa ta'ala ana awlaad u barakeeya inta awlaadonkaana إلهي أولاد باري هسي أنت جردون كأنا جر ونكسن المستقبل ونكسن أبوين هسيو غفل بموقال كلاك تكون قبتها سينا شرقريا وحن ربي سبحانه وتعالى عنك قبر ينا دم بجود الدم بجوالد كود بين ولا ربي سبحانه وتعالى أنا وكعزوما جنة الفردوس على إلهي سبحانه وتعالى أنا أوصيا مال أيسن فيلين وعن حاسد كلين هاي ومن شر حاسد إذا حاسد الحاسد لا يفلح بإن الله الكريم وحكود بين يهوجي قصارة وحن ربي سبحانه وتعالى عن كبر ينا حاسد أنت إن قريوه ده هوجي قصارة إلهي وكتوسع لك طلع ما هي كوكا موقار كلاكتا وحن ربي سبحانه وتعالى لما أنت بان كبر ينا أنت حنوصلين ولاي حنونك وكتل قاضو عفمان نوجو بدلا ومدة الصوماليين ميرو بيجوكتين إلهي جرجار كيسي نسري كيسي وصيا وحن يجي دونا وركها نجسو جاري حبسي dhaxe مقدشو وير عروس هدا وكسعودة كديم مركي هالكاس الدجال وكل حبلاودي محابيست حبسي كو حران قاركود يولي بإلالة حبسي dhaxe حمر هذا أبو حنيدي سو قد بندونا حكو سابسن قابكا أرنتاسي أود عدي يولي بسيدا محابيست أي كهلين هبكا وراركا كيمانا يا حبسي dhaxe مقدشو أي كحريهين كمانان محابيسة أو بدن شخصيات أما دل لجو إيديين كترسيهين دجال يهنذا دغدغاك على شباب أسكر كترسن عيد مدى الدولة دي محابيس لحري دغن علنهانا يلا شيء إن ساعة الدورة هذا أي كسعودها الكاسي رصاص من النول أو يساعدك سريان أو يساعدك سريان محابيس تكجرتها حبسي dhaxe حمر يصيروا كله عيد مدى إلى هذا حبسي أو يكجران عيد مدى أسلوبته الدولة الصومالية وحبسي قاسي إلالية wararka waxay intaas ay sii raacinayaan in xabsiga dhaxe muqdisho xilligan ay tahay xilli fiid hore oo habeen ah wali ay ka sii socoto xabadda ayadoona sidoo kale goobta ama agaarka xabsiga la geeyay ciidamo ka tirsan kuwa booliska ciidamada nabad sugidda iyo qaar ka mid ah ciidamada militariga oo caawinaya ciidamada asluubta ee ilaaliya xabsiga dhaxe xamar ila xoogagal oo ku sugan xabsiga dhaxe muqdisho ayaa inoo xaqiijiyay in tira maxaabiisa goor hore ay baxsadeen kadib rasaasta markay sidaasi ay ugu bilaabatay xabsiga dhaxe muqdisho mana jirto wararka sheegaya in dagaalyahano ka tirsan al-shabaab ay soo weerareen xabsiga laakiin waxaa xabsiga muqdisho ku dagaalamaya ilaalada xabsiga muqdisho oo ciidamada asluubta ah iyo sidoo kale maxaabiista xabsiga oo helay hub waxaana dad badan oo ka mid ah daawadayaasheena ay isweydiinayaan qaabka maxaabiista ay u heleen hubka taas oo keentay in maxaabiista xilligan ay ka dhex dagaalamaan gudaha xabsiga dhaxe muqdisho goordhow waxaan idin soo gudbin doonaa macluumaadkii ugu dambeeyay qaabka maxaabiista ay u heleen hubka iyo cidda u sahashay inay hub helaan gaar ahaan hub ay ku dagaalami karaan dhowr saacadood waxaase wararka qaar ay sheegayaan saraakiil sarsaro ka tirsan dagaalyahanada al-shabaab oo ku jiray xabsiga dhaxe muqdisho inay baxsadeen ayadoona ilaaha xogagaalka ee aan soo xiganay ay xaqiijinayaan in tira maxaabiis ah ay ka baxsadeen xabsiga dhaxe xamar waxaana hadda wali sii dagaalamaya maxaabiista oo doonaya inay ka baxaan xabsiga dhaxe xamar xabsiga dhaxe xamar waxaa ku xiran dhowr kun waxaana taasi ay laba jibaar ama saddex jibaar ay ku tahay tirada lagu talagalay xabsiga inay ku xirnaadaan waana midda keentay in xabsiga dhaxe ay ka jirto xaalad caafimaad ciriiri baxsan oo maxaabiista ay dareemayaan cunno xumo iyo waliba dhibaatooyin kale ayaa haysta maxaabiista ku jira xabsiga dhaxe xamar mase jirto dowladaha Soomaaliya soo mara xataa midda hadda jirta daryeel loo fadiyo maxaabiista waxaana maxbuuska xaq u leeyahay inuu helo hoy iyo meel uu saxdo lagu hayo nadaafad leh iyo cunno fiican laakiin intaba kama jirto xabsiga dhaxe xamar ee hadda rasaastu ay ka socoto hada wixii arimahani ku soo kordho waxaad ku daawan doontaan muuqaalada aan soo gelin doonno iyo waliba shakhsiyaadka caanka ah ee ka tirsan dagaalyahanada al-shabaab ee ka baxsaday xabsiga dhaxe xamar